ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay fashiliyay qaraxyo lagu aasay qaybo kamid ah degmada Buulburte ee gobolka Hiiraan. Qaraxyadani oo ahaa miino ayaa waxay saraakiishu u soo bandhigeen warbaahinta kadib markii ay howlgal ka sameeyeen degmadaasi. Saraakiil ka tirsan kuwa dowladda ayaa sheegay in qaraxyadaasi lagu aasay suuq lagu iibiyo qaadka kuna guuleysteen inay soo saaraan miinadaasi lagu aasay suuqa lagu iibiyo qaadka. Sidoo kale saraakiil ayaa sheegay in shacabku ay la soo wadaageen xogta qaraxyadaasi. Saraakiisha ayaa sheegay in shacabku uga mahad celinayaan wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada amniga dowladda federaalka Soomaaliya. Muddooyinkii dambe ayaa waxaa falalidii kuwa nabadgelyada ay ka dhacayeen degmada Buulburte oo inta badan ay weerar culus ku qaadaan kooxda dagaalyahanada ee Al-Shabaab. Qaraxani la dhigay suuqa lagu iibiyo qaadka ayaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya uga shakiyeen kooxda xarakada Al-Shabaab oo iyadu aalaba qaraxyo iyo dilal ka geysata dalka Soomaaliya. Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame wararka telefishinka Badda Cas magaalada Hargeysa.